farxadda damaashaadka iyo dhool cadeynta ayaa ah astaamaha arooska waxayse farxaddaasi sii bilaabmataa marka aroosadu ay tahay qof furfuran oo ka qayb qaadanaysa farxadda habeenkeeda nolosha inuu noqdo arooska mid xusuus reeba oo laga sheekeeyo ayaa ah mid ay gabdhuhu aad u xiiseeyaan waxayna ogolaan diyaar garow dheer oo ay qayb ka yihiin asxaabteeda iyo qoyskeeda. marka hore aad ay u farxsanaa arooskeyga inuu si qurux badan iigu dhaco midana waa rajeynaa inuu sidaas kasii qurux badan iigu dhaco haddana ku faraxsanahay qaabka quruxda badan oo iigu dhacay midaan kaleeto hadda usoo jeestay dadka waxay iga aaminsan yihiin gabar walba way ku faraxsan tahay hamigeedana uu yahay inay habeenkaas si qurux badan ugu dhaco aniga midaas waxay muddo ugu badan mar walba ku hami jiray. maxamed Saciid Tahliil oo ay dadku u yaqaanaan Foori ay waa muuqaalduubihii soo bandhigay arooskan qabsaday baraha bulshada wuxuuna ka waramayaa sheekooyinka uu kala kulmay arooskani waxa uga duwan yahay aroosyada kale. muuqaalo yar oo mobilka lagu duubay oo dadka Snapchat kaga duubeen oo baraha bulshada la geliyay waxaan ka dareemay in muuqaalkaas oo maxaa la cajiib ahay sida aan hore u aragnaba xaflad inta joognay dabadna waxaan dhahnay muuqaalka hadda la baahinayo maadaama tayo badan imaanti iyo qurux badan lahayn يا متك أديك هيسان أفانت كواليتي له أفانت شعورتي مقارنة قرحيسي فرحة الحي باقي لسان وقسم البرنامج محل هاي هو هذا ذكر أكين المقارنة ورجينا تاسع أنا مقصدتي أنا نقولنا bulshada ayaa siyaabo kala duwan uga falcelisay muuqaalkan halka qaar ay soo dhaweeyeen qaarna ay dhaliilo u soo jeediyeen waxa la wada qirsan yahay in muujinta farxadda habeenka arooska ay tahay mid lagama maarmaan ah. horta arooska qof oo hadda macnaha lagu qasbo jirin saadareemaysa oo jida macnaha gabadha inay aroos ku qacsaneed maadaama hadda aniga aan si gabadha waxay sameeyaysaa wax aniga isla ogin kale dad waa jirin macnaha soo wacay oo arooskiini saas bulshada macnaha social media haysta saadareed waxaa dhacay marka waxaan dhahay kulli wax aniga isla ogin ama wax ku faraxsanahay maahan wax aniga ka kulna maahan saas oo falay marka dad soo wacay jiraan soo kol kareen guurku waa nolosha farxadeedana adiga kasban kara Aishana waxay qaas ka dhigatay habeenkeeda.